Assalaamu calaykum kulanti wanaagsan soo noqod wanaagsan mar kale waxaan ku rajaynayaa inay maalin qurux badan ku tahay badanaa dadku waxay ku dhibaataysan yihiin joogtaynta ama sirta joogtaynta ayay ku dhibaataysan yihiin joogtayntu ma ahan oo keliya dhiirigelin waa caado iyo nidaam iswata marka dadku badanaa aad iyo aad ayay ugu dhibaataysan yihiin oo anigu aan qayb ka ahaa laakiin bal ka waran haddii aan ku dhaho maanta wixii ka dambeeya kuma dhibaato doontid ama kuma feelgaroobi doontid in aad wax joogtaysid waxaan kula wadaagi doonaa dhowr qodob oo fudud oo kaa caawinaya inaad wax si daily ah ama si joogta ah aad u samaysid ay noqdaan consistency actions aad maalin walba u qaadid waxyaabahaas aad qabanaysid kaligaaga maahan hana ka walwalin hana ka shalaynin maxaa wax u joogtay lahay maxaa u qaban lahay maxaa sidan u samay lahaa dhihin dadka oo dhan ayaa ku dhibaataysan oo waa waxyaabaha la isku raacay ee laga qoray buwaag laga qoray maqaalo iyo podcastyo laga baahiyey consistencyga wax joogtaynta marka waxaan kula wadaagayaa qodobo fudud oo sahlan oo aan isdhihi karo way ka caawi doonaan haddii aad ka faa'iidaystid inta muuqaalka uu socdane aad ila joogtid qodobka koowaad wuxuu yahay ku bilow waxyaabo yaryar oo fudud ku bilow waxyaabaha yaryar ee fudud waxay ku siinayaan in aad wixii aad joogtaysid ee aad si joogta ah markaa aad u qabatid tusaale haddii maalintii aad akhriso 10 daqiiqo oo keliya haddii aad bug akhriso waxay ku siinaysaa in markaasi aad la qabsatid oo aad ku raaxaysatid misena joogtaysid wax akhriska sidoo kale haddii maalintii aad qorshayso 30 daqiiqo oo ka mid ah waqtigaaga inaad luqad barato 30 daqiiqana aadan wax kale ku mashquulin waxay ku siinaysaa markaa in 30 daqiiqo aad joogtaysid luqadaasi aad baranaysid waa daily 30 minutes oo kaliya waa 30 daqiiqo oo kaliya ayaa bedelaya wax walba markaa luqadda barashadeeda iyo ku hadalkeeda qoritaankeeda iyo wax walba ku saabsan marka joogtayntu waxa ugu fudud ee lagu joogtay karo waa in lagu bilaabo wax yar oo fudud inaad ku bilowdid si aadan kaga caajisin qof kale wuxuu yahay jadwal u samayso jadwal la'aan consistent wax la yiraahdo ama wax joogtayn la yiraahdo marna ma suurtagalaan jadwalku wuxuu ku ogolaanayaa in aad waxan aad qabanaysid ee aad joogtaynaysid aad waqti go'an aad u qabatid oo aad ku dhahdid daqiiqada ama saacada ama 30 daqiiqo ayaan u goynayaa in waxaan aan ka gool gaaro marka inaad jadwal aad u samaysid jadwalkana waa inuu yahay jadwal markaasi ama daily ah ama weekly ah jadwal maalinle ah ama jadwal toddobaadle ah ama jadwal bil ah adigu waxa aad markaa rabtid inaad joogtaysid ee aad ka gool gaartid qodobka saddexaad oo ah qodob isagana muhiim ah laga maarmaan u ah in wax la joogteeyo waa in aad yeelataa hadaf cad oo qeexan waa inaad yeelataa maxay tahay waxa aad rabtid in aad joogtaysid waa hadaf maxay tahay waxyaabaha rabtid inaad joogtaysid hadduu marka waxyaabaha aad rabtid inaad joogtaysid ay hadaf ku lifaaqan yihiin oo aad rabtid inaad luqad baratid waa hadaf haddaad rabtid inaad miisaanka iska ritid waa hadaf haddii aad rabtid inaad jir qurux badan samaysid waa hadaf marka waa inaad hadaf cad oo qeexan aad yeelataa si waxaasi aad consistent aad ugu samaysid oo aad u joogtaysid kadibna waad ka guul gaaraysaa oo markaa way kuu fudaanaysaa laakiin hadduusan hadaf jirin ama gool uusan jirin yacni waxba kama guul gaaraysid oo waqtigaaguna wuu berdaroobayaa jadwalkii iyo waxyaabihii fududaa aad sida dailiga aad u samaynayso oo dhan ma suurtagalaya mana kuu fudaanayaan marka waa inaad marka leedahay hadaf cad
oo qeexan waa inaad leedahay. Qodobka afraad oo ah qodobka ugu muhiimsan, daily goalskaaga si aad uga goal gaarto waxaa laga maarmaan ah inaad qodobkan leedahay. Inaad consistent aad samaysid waa qodobka ugu muhiimsan ee udubdhaxaadku ah. Waxaa la yidhaahdo ka dhig caado. waxaas aad rabtid in aad si daily aad u samaysid, in aad consistent aad ka dhigatid ee aad joogtaysid caado ka dhigo. waayo caadaadku oo waxyaabaha sida maalinlaha loo sameeyo, hadday noqoto caado wax akhris, hadday noqoto caado jimicsi, hadday noqoto caado luqad barasho, hadday noqoto caado xirfad barasho, waa waxyaabaha u baahan marka joogtayn in loo sameeyo. caadaadkuna Soomaalidu maxay dhahdaa hebel caadadiisa maahane waa ceebtiisa. taasi oo qayb ka ah in qofkan waxan uu joogteeyo. si aad u joogtaysa marka waa inaad caado ka dhigataa oo caadooyinkaaga aad ku dabaqdaa. weliba markaad rabtid inaad caadaadkaada ku dartid waxyaabaha rabtid inaad joogtaysid. tusaaloo kale waxaad jeceshahay inaad kofeega cabtid. kofeega intaad cabaysid, haddii aad bug akhriska aad rabtid inaad joogtayso, waqtigaa ayaad ku dabaqi kartaa oo caadadaasi ayaad ku xiri kartaa. oo bunka ama kafeega aad cabaysid ayaa qayb ka soo gelinaysa. markaan wax kafee cabayo bug ayaan akhrinayaa. dan markaa aad sidaa aad ugu dartid caadadaasna ay qayb ka noqoto joogtayntiina markaa aad joogtaysid. qodobka shanaad, ha sugin niyad wanaagsan. ha sugin maalin walba qofku kuma soo tooso niyad wanaagsan. emotionka aadanuhuna maahan mid maalin walba ama sakano walba isku mid ah. marka ha sugin in niyad wanaagsan aad ku soo toostid. maalin ayaad waxaan aadan joogtaynayn, maalin ayaad joogtaynaysaa. marka ha isdhihin haddii aad maanta ka tanaasusho ama aadan maanta samaynin wixii aad samay rabtay ee joogtay rabtay, haddii aadan samaynin ha isdhihin maxaan u samay waayey, maxaan u yeeli waayey. sababtoo ah niyadda aadanuhu kuma siinayso niyad wanaag maalin walba looguma soo tooso. marka taa ha ka shalaynin oo sii dah. maalintaa ka tagtid haba shalaynin, laakiin maalinta kale yaysan noqonin inaad ku celisid wixii. qodobka lixaad oo ugu dambeeya muuqaalka, ha quusan haddii aad xataa hal maalin seegto. oo qodobka ka horeeyay, haddii aad hal maalin seegto xataa ha ka quusan oo waxaad aad joogtay rabtid ku celi. maanta haddii aad ka quusato, beri aad ka quusato, beri dambe aad ka quusato, then wixii oo dhan, qodobadii oo dhan ayaa meesha ka baxayo. caadadii, jadwalkii, joogtayntii iyo wax kasta ayaa meesha ka baxay. marka haddaadan ka quusanin oo aad maanta haddii aad ka baxdo ama aadan qabanin waxaad joogtay lahayd, luqadda maanta baran lahayd, haddii aadan baranin berito ku celi oo ha ka quusanin. taa marka waxay keenaysaa marka inaad dhistid caado joogtayn la yiraahdo consistent, ama sirta joogtaynta inaad markaa aad dhisid. taana waxay ka anfacaysaa marka in yoolashaadii iyo waxyaabaha ahdaafta ku ahaa markaa in aad ka guul gaartid. marka 6 qodob ayaan jeclaysta bal inaan ku soo koobo. qodobo kale ayaa jiri kara, qodobo kale oo lagaga faa'iideysto joogtaynta iyo macluumaad kale ayaa jiri kara, balse 6 qodob waa qodobo very easy ah. waa qodobo fudud, qof walba uu samayn karo. kow, inaad ku bilowdid waxyaabo fudud oo yaryar inaad ku bilowdid. 2, inaad jadwal aad u samaystid. noloshu waan ka hadalnay, jadwal haddaadan lahayn nool ayaa tahay oo meel laga jira, meel ay wax u socdaan aanan adduunkan waxba ka ogeyn. marka jadwal inaad yeelato. 3 oo ah hadaf cad oo qeexan inaad leedahay. ahdaafta waa very important, waa waxyaabaha ugu muhiimsan qofka noloshiisa hormariya waxna lagu joogtay karo. qodobka 4 oo ah in aad ka dhigato caado. qofka waa inuu caadaad leeyahay, every day waa inaa caado aad hormarisid. qodobka 5 oo ah ha sugin niyad wanaag. ha sugin niyadda maalin walbo kuma siinayso. maalin walba niyaddaada ma qurux badnaanayso. maalinba emotion, maalinba dareen ayaad kusoo toosaysaa. qodobka 6 ugu dambeeya marka oo ah qodobka ugu muhiimsan, ha ka quusanin inaad wax joogtaysid oo maalintii aadan qabanin maalinta kale ku celi.
ku celi marka dambe waad ka guulgaaraysaa. Marka 6 qodob ayaan kusoo gabagabeynayaa. Waxaan rajaynayaa in wax badan ay ka anfici doonaan. Marka haddii halkan nala soo gaartay, waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirtid. Haddii hore noola jirtayne, waxaan kaa codsanaynaa in muuqaalka like inoo saartid, saaxiibadaana aad la wadaagtid, wixii aragtidaadana qaybta hoose aad igula wadaagtid. Tan iyo intaan muuqaal mid ka lamid ah ku kulmi doono, waxaan kaaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum.